رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مقلي جرتي قفكاس وكو باشاري هل كان حمر حلقة دها والله كو راحستي يعني وكو باشاري وكو عيار لولا جيدا مركا المهم يوروب او هي كو راحيسانيسا مريكانكا جورنالدي igu afkara dheeraa Yurub waxay qorayaan idin haya ko aan soo bilowna hal mar wixii loo maleynayay siday noqotay kaartoonka hal mar la fiiri bam weenaaday oo Mareykanka aad arkaysaan hee buruso wata babkii waxay noqotay diyaarada oo keensaday hal mar kaartoonka si fiican fiiri waa jasiirada kharaq island qofkaasi buruska wata calanka Mareykanka dhar ahaan u gashan waa Mareykankii diyaaradiisuna waa kuwaasa macnaha wuxuu isku taabtay hee wariba oo sii wada macnaha yaani adiga macquul ma tahay bambo inaad ku dhufato aysan kugu qarxin Iiraan oo dhanaa qarxday wixii loo maleynaa la hooweysay haddana kharag ayuu hay faraha kula jira marka waxay ku tilmaameen haddii aan ku soo koobo jasiiradaasi Mareykanka haduu isku taabto wixii dhacay wax ka siyaa badan oo la xakameyn karin aad dhici doona sababtaas dabcan keentay in Mareykanka uu soo istaago yani Iiraan waa la hadalnay waxaan u dib dhignay arintii inaan garaacno 5 maalmood Iiraan intay soo badalay beentiisa waa wax ka jira malaha kadib waxa soo baxay Iiraan baalo u diray maxaa uu sheegay message u diray asoo dawladda u maraya Iiraan waxay tinadqana المهم وافهم كريسا marka midaas waa taa ila markaan rabaa inaan soo koobno fiidiga waxaan ku soo koobnaa warkii dhacay oo dhan waxa ugu weyn gaar ahaan ay ka mid tahay arintaasi oo ah wixii loo maleynayay waxay noqotay kadib maxaa dhacaya waxa dhacay sidan journey into the Middle East and eliminate a big problem and Pete I think you were the first one to speak up and you said let's do it because you can't let them have a nuclear weapon I call meel ay cashab ku cuneen ayaa shir jaraa'id ahaan u qabtay Trump waxa la fadhiyay markii wasiiradiisa wuxuu ka hadlay Iiraan iyo sida dhibaatada macnaha ay u tahay ikada iyo mise wasiirkiisa dagaalka intuu ku jirto xiri bit adiga yaani waxaad kamid ahayd dadkii ugu horeeyay ama qofkii ugu horeeyay oo dhahay Iiraan aan galno journalada automatically arintii waxay ka soo qaateen معناها in responsibility ما يعني هي ايش اودي اما محوها المهم مسؤوليتي عفوا مسؤوليتي او دونايو انه عيد كره اسكا صار وابا صاريبا حبلك سي سو ديين Pete I think you were the first one to speak up and you said let's do it you were the first one to speak up qofkii ugu horeeyay ee Iiraan hal weerar dhahay ayaad ahayd macnaheedu waa maxay eed adiga iskale ko maxaa ka horeeyay hadalkaas waxa ka horeeyay Netanyahu oo eedeeyay sirdoonkiisa weynaa ee Mossad oo ku yiri aniga bahashaan waxa ay tuuray muxuu ahaa mooskan miya mise fuustaan waxa ay riixay Mossad ay riixay oo si ay ugu dhixday waxay ii sheegeen in haddii hoggaanka aan dilno dhowr duqeyn aan geysano in shacabka Iiraan ay kici doonaan meeshana yani xukuumaddaas ay dhacayso ay macnaha igu sameeyeen kadib maxaa dhacay babliga ay ahayd hadalkaasi kadib waxa ku xigay inuu Trump naftiisa wacay maxay Trump wuxuu ka carooday Iiraan dhicid iska dhaafe jugta ay u geysatay Mareykanka muddooyinka kama soo kaban karo hatta sumcad ahaan iyo maal ahaan iyo wixii la midka ah almuhim Netanyahu wuxuu wacay Trump asagoo ku dhahaya adiga waynu dhacday aniga ma ahan cid ku gaaday kuma gaadin aniga oo adiga waxaan gaaday hay sirdoonkeena ana gaaday oo wuxuu leeyahay Netanyahu ayaa macnaha telefoon ku hadlay muqt dalaalan soo warinay akhbaaraadkii telefishinadii iyo maxaan ku dhahay website-yadii ugu waaweyn ay qoreen marka waxa uu sheegay in Mossad arinta ay sameysay haddana ay ku jiraan sababta iyo meesha ay wax ka khaldameen in la raadiyo ay u dhow yihiin inay helaan meesha wax ka khaldameen tayib waa is eedeyntii moogtahay waxa xigtay marka waxa inoo soo socda reer galbeed si u baashaan inoo soo socota arintana xigtay marka Aytaram you are fired you are familiar with this sentence Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. headquarterka ama xarunta dhexe ee Khatam al-Anbiya afhayankiisa ama afhayankooda weeyaan ninkan aad iyo aad waad u aragtay waa taqaanaa af Ingiriis wala soo istaagay hey Trump hey macnaha alla iska taqaanaa yani hey wala Trump you're fired waan ku celinay shaqadii waa laga ceeriyay
markaasoo leeyahay you are familiar with this maxaan ku dhahay sentence inuu dhahan umalinaya macnaha arrintan ama hadaladan si fiican u taqaanaa ilan Trump maxaa lagu eedeeyaa cid alle cidii ka hor imaata you're fired you're fired you're fired you're fired macnaha waan ku casilay shaqadan kaa ceeliyey war naga tag saas oo kale ayuu sameeyaa marka ku dhamaatay shaqadaada u dhamaatay maxaa yeelay wixii aad filaysay wax ka duwan aad aragtay sidaa darteeda cid ku dooran doonta ma lahan ku dhamaatay you're fired laguma dooran doono adig uun iska dhaafi xataa xisbigaada way u dhamaatay okay qaar kale waxay dhaheen you're fired kan iyo qaybta hadalada israacsiiyey marka la fiiriyo guud ahaan waxa weeyaan waan ku fashilinay waan ku burburinay way ku dhamaatay ma intaas maya doorashada ma helaysid annagana sidaan u taagannahay annagoo awood la weli cidii saraysay unaad disheen qofka lagu bedelay oo booska aan u banayseen oo bila wax isbedel inayna ma laha adigana adaa hadda ay kula fadhisaa ilaa haladaasi taagantahay waa shaleeto dowladda real estate waxay ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraysaa fursad qiimo badan oo dalka gudihiisa loogu diyaariyay waxaan ku diyaarinay apartmentyo dhismo weyn oo laga dhisay magaalada Muqdisho parking weyn oo casri ah Sheekh Maxamed maxay kale noo diyaarisay dowladda real estate waxay diyaarisay ma sha Allah ugu horeyn biyaha xataa biyo filtraysan haba yaraatee ma Caafina dowladda aad loo baahan yahay dowladda yani jikada waxyaab cajiib ah waxa kamid ah in ay leedahay miiska dhex ka dhiska hadi jikooyinka casriga ah waxa lagu diyaariyay madraso cajiib ah ogowna waxay ku taala banaadir qaybta ugu bulshada badan ee haday waqti isbaarida ku yaala ereadaasi sidaas oo kale jaamacaadkii iskuuladii sidaas oo kale suldaanka waxay leedahay supermarketkii yani hadda uma bixaysid banaan xisaabso 5 qol 5 mas'uul qolka qaar kamid ah weliba midka ugu weyn ee 10 mitir weeyaan macnaha walking closet uu leeyahay oo armaajadii dharka oo qol ah ay dhaxmaraysa markaa musqusha u socdid yani waxaan hore loo arag xamar laga arakin aan rabnaa insha Allah taala inaad heshaan fursadda ka faa'iideysta waxaan kala soo xiriiri karisaan nambarada okay hal mar ila fiiriya meeshan marka bal wargeyskan wuxuu u geysanayaa ninkii Trump ahaa ila fiiriya wargeyska ma taqaan adig the independent wargeysyada ugu afka dhaadheer ee caalamka hadalkiisa wax uu qoray u fiirso wuxuu leeyahay Iran has finally exposed the limits of Trump's power Iran ugu dambeyn waxay banaanka soo dhigtay xadidnaanta awoodda Trump sida ugu raaxaysan ma jirtaa yaa qoraya waa saaxiibkii ugu dhawaa ee Mareykanka waa joornaaladii ugu afka dhaadheera ee reer galbeedka waa joornaaladii ay la duuli jireen markaas ciwaan kor maxay uga dhigeen taqaanaa the US and Israelis the wiliba forgot the lessons of recent history macnaha Mareykanka iyo Israa'iiliyiinta waxay ilaaween the lessons casharadii of the recent history taariikhdii dhaweed hadda way ilaaween arrintan ay isdul taagna marka baashaal haddaad gasho independent maqaalkan aad ku dhufato waxaad yani qosol ma joojinaysid waxay leeyahay mataqaanaa hatta Afghanistan ahayd maxaa ku dhacay Trump muwaaran yahay Iraq ahayd maxaa ku dhacay Trump muwaaran yahay markaas waxay falanqeynayaan ciidamadii Mareykanka si u carareen hubkoodii maxaan ku dhahay diyaaradahoodii oo ay awood u heli waayeen in ay is ururiyaan raga waxay ka soo tageen mataqaanaa adiga ii sheeg saacadoodii qaaliga ahayd ee hadiyada loo siiyay katiinad maxaan ku dhahay xaaskiisa ama kada ay maxaan ku dhahay waa helay waalidkiisa Faraanti oo uga dhintay oo macnaha waxyaalo valuable ah oo xusuus ahaan ah ma ahan material caadi ah oo yani saacad iska caadi ah oo laga ma hadlayo katiinad iska waxa laga hadlayaa wax xusuus kugu leh oo qof qaali ah ku soo hadiyay wax adiga shakhsiyan aad leedahay no waxaasi macquul ma inaan waayo waxaas kama tagayo ayay ka soo carareen ma intaas maya waxay sameeyeen sidaas oo kale in ay haleeli waayeen inay xataa suuman ka xirtaan hal mar diyaaradana saaro waxay dhaheen marka maadaama taariikhdaasi dhaweed hadda ay tahay oo recent ay tahay mar dhow ay tahay xogaan aan dib u laabano wuxuu dhahay ay qoreen macnaha Ciraaq Mareykanka ciidamo un kagama dhiman dhaqaale un kagama baabi'in laakiin wadankaasi waxa ka dhashay marka la fiiriyo iyo wixii Trump yani dawladda Mareykanka ay rabtay ay ku dhawaaqday labay ahaayeen dawladda Mareykanka waxay ku dhawaaqday in ay wadankaas dimuqraadiyad geynayso xukuumada la dooran doono in dadkaas barwaaqo ay heli doonaan macnaha waxaasay ku gashay laakiin maxaa dhacay isdil qarax qaxootinimo rafaad gaajo faqri waxaanan horay u jiri jirin ayaa meeshii ka dhacay waxay leeyihiin marka mawaaliyihiin Trump iyo Israa'iiliyiinta hadda una arrintan dhacday ma oga miya annaga reer Ingiriis haddaan nahay annaga reer European haddaan nahay arrintaasi waan ognahay maxay we learned lesson waxaan baranay casharkaas oo hadda dhow aha marka waxay leeyihiin
أودي سؤال تجابي ولا ما أعطي سير أول حسنا ما نفيسه أنا أنت أصلا كسوكوا يا وركي يكون ويان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته